أحمد أبو بكر ماريا جود شركة بونتس مارين صار كيسان هالكم من الجوجا وحندنا بلنا نكور إنه هؤلاء كسبسن بالشركة بونتس ماريس يهولها وجود بيجي عقبتي شركة بحين يهوش يودي هالكم مريسو أحمد بكر كسودو. بسم الله الرحمن الرحيم سلام عاديات بعض ما تنتي عاديات بان idinku mahadnaqaya saad dhamaantiin bal wada socotaan ba waxaan idinku ku jiray qaybtii koowaad ee ah in la ururiyo sheerarka taasi aad iyo aad bay u socotaa si xawli aad iyo aad u fara badan bay u socotaa waxaan idinku ururinay kulay badh waan ururinay 5 milyan ee doonaynay inta kalena waxaan doonaynaa inaanu dhawaan ururino maalmaha waxaan ku jiray safar fara badan oo waxaan tagnay wadanka dibadiisa sida Yurubta waxaan doonaynaa in aan Sweden ku noqono waxa kale oo doonaynaa inaan tagno Sacuudiga iyo Imaaraadka Qatar iyo Kuwait intaan waxaan doonaynaa inaan ugu tagno bulshada Soomaaliyeed meel kasto ay joogaan si ay uga qayb galaan shirarka oo aanay fursad u seegin istijaabo fara badan maanu helay marka hawsha koowaadna waxay dhamaanaysaa bisha December 31keeda daalida taana waxa bilaabi doonta marka qaybtii labaad ee ugu talagalnay company-ga koleysaan la socon Axmed waxa jirta in baryahan baad safar kale ku bixinaysan meel walba oo adduunka kamid aan arkaynay aan ku arkaynay saxaafadda maxaa idin qabsamay ilaa intii aad hawshan bilowdeen waxaan wadnaa barnaamij maalgashi oo cusub oo dadka Soomaaliyeed ku cusub meel kasta ay joogaanba waxaan doonaynaa in ay dadku fursad u helaan in aad loogu sharxo ujeedada safarkayguna waxa weeyaan inaanu qof kasta oo Soomaaliyeed oo doonaya inuu maal gashado aanu fursad u seegin oo loogu taga meesha uu joogo loo sharxo marka ujeedadaanu u tagaynaa waxa weeyaan qofku inuu fahmo waayo wixii waa la jecelo inuu fahmo waxa uu maal gashanayo oo aad iyo aad ugu sharaxno deetan isagoo ku qanacsan aanu deetana markaan inaanu soo maal gasho waayo ma doonayna inaanu meel madow wax kaga qaadno qof kastaba waa inaanu sharaxnaa marka meelihii noo qabsoomay istijaabooyin aad u far badan baa jiray imika waxa jiray agency caalamka oo dhan oo dadka la xiriira oo qancinaya qof kasta oo maal gashanaya wuxuu doonayo xaq u leeyahay iyo waxaanu xaq u lahayn labadaba soo qofku uu ogaado waxa uu maal gashanayo iyo sida maalkiisu ugu soconayaan waxaan ognahay Axmed in dadku runtii Soomaalidu aad ay shirkadan aad uga heleen oo dadku ay u dhaga taagayaan marka mashruuc goorma laga yaabay inuu bilaabmo spacekiisu ugu horeeyay ama wajigiisu ugu horeeyay goorma laga yaabay inuu bilaabmo wajigii koowaad imika ayuu dhamaanayaa bisha 12aad 13keeda ayuu dhamaanayaa waxa ku xigay markaa dambe in la sameeyo phase-kii labaad iyo kii saddexaad oo isku xiga so inshallah by February inshallah diyaar baanu nahay inaanu hawsha bilowno oo aanu ground-kii ka hawlgalno marka waa si dhaqso ah iyo xawliba u dhamaanaysaa daalida aad baan runtii marka maxaad ku soo kordhinaysaa dadka aad u sheegaysaa talooyina ee ku saabsan waqtigan xaadirka imika waxaan idin sheegaynaa walaalo fursado qaali ah baanu haynaa fursadahaasna waxa weeyaan maalgashi oo qudhamaahe inaanu ku sheegno inaad nala shaqayso aan wada shaqayno oo aad noo shaqayso oo aadna maal gashato fursadda koowaadna waxaanu siinaynaa dadka company-ga leh ee maal gashada ayaanu siinaynaa fursadda koowaad hadday noqoto shaqo abuuris hadday noqoto qandaraasyadaanu bixin doono marka dadka waxaan u sheegaynaa in aan idinka buuxsamin shaarisku talamaadee kale qofkii maal gashada uu dadka kale naga xigayo taana waan u sheegaynaa aad baad u marsantahay kaas waa Axmed Abu Bakr oo ah maarayaha guud ee shirkadda Bonds Marine waxa idin soo jeedinay aniga oo Xamse Axmed Salaan wa Salaal Media. Assalamu alaykum wa rahmatullahi